بسم الله الرحمن الرحيم. halkan ugbaad heelta kuwa kunooya kusoo dhawaada asxaabta ugbaad intii nala joogta way mahadsanyihiin intii cusubna gacmo furan kusoo dhawaada. maanta waxaan sameysanaynaa wax timaha aad iyo aad ugu wanaagsan oo tintaadu shining iyo qurux iyo dherer ay isku darsanayso. halkaas waxaa noogu jira waxaa alaabta halkaas noo taalo alaab aan maanta 6 shay ah oo aan rabno timaha inaan ku hagaajino. haddaan dhahan hadda shay baan u sharaxaynaa ma ka gaari karno. halkii xabo waxay qaadanaysaa fitamiinada laga helo waxyaalaha uu taro. haddii waxaas dhan aan sheegno waxay qaadanaysaa waqti fara badan bay qaadanaysaa. haddaan dhahno xabxabada aan sharaxaynaa marka si guud baan isaga sharaxaynaa. halkaas waxaa noogu jirta ukunta shaharkeeda ama yoolkeeda mid kala dhaho inta guduudan baa halkan noogu jirta. faa'iidada ukunta ay u leedahay timaha iyo jirka waxa la soo koobi karin. timaha way korisaa, way dheeraysaa, shine bay ka dhigtaa, strong bay ka dhigtaa. haddana balance bay maskaxda meesha timaha kasoo baxaan maqaarka bay balance garaysaa. halkaasna waxaa noogu jira hair mayonnaise wax la yiraahdo ama food hair wax la dhaho oo timaha aad iyo aad ugu wanaagsan. tinta wuxuu ka dhigayaa wax jilicsan oo wuxuu ka dhigayaa aad moodo in mar walba qoyan tahay oo aad u jilicsan bay noqonaysaa tintu. hair mayonnaise kaas meeshaas waxayna ku jirta saliidda qumbada oo organic ah oo sideeda lagu soo shiiday. saliidda qumbada waad aragteen faa'iidooyinka jirka u leedahay waa antibacteria wax kastay tarta oo jirka maqaarkiisa u tarta. meeshan waxaa noogu jirta yogurt, waxaa ku jirta fitamiino iyo borotiino timaha iyo maqaarka iyo lafaha koriya. laakiin timaha aad iyo aad bay ugu noqonayaan waxaad u fiican maskaxda meesha maqaarka tinta ka baxdan waxbay u tartaa. kaasna halkaasna waxaa noogu jira malabka waad ogtihiin faa'iidooyinku leeyahay waa antibacteria waa antifungus meel xataa dhaawaca waa la marin karaa. taasna waa dacar ama aloe vera. cilmi baaris lagu sameeyay waxay sheegtay in 112 cudur daweyso. dacartu cabitaan baa laga dhigan karaa, wax kasta laga dhigan karaa, fitamiino 100 ka badanna way ku jiraan. marka dacartu waxyaab la weeye. halkaas marka waxaa soo shiiday maca qolofteedan ku shiiday aloe veradan soo shiiday ama dacartii baaquligaas yartaa waan ku soo shubay waana soo miiray. hadda waxaan ku daraynaa halkaan 3 qaado oo yogurt ah. yogurtkaas waa yogurt plain ma aha midka strawberry leh ama ma aha midka vanilaha ah. waa yogurt plain waxna kuma jiraan sidiisa u dhanaan yahay. hair mayonnaise kana waxaan kaga darsanaynaa iyadana 3 qaado. waxaad isticmaali kartaa nafaqo kasta oo guriga ku taala. hadaa Soomaaliya joogtid caanaha garoorka u isticmaal booska yogurtka booska mayonnaise kan u isticmaal. hadaa rabtid macsaro u isticmaal ama meel kastoo la joogo adduunka maanta wuxuu noqday global buu noqday waa la heli karaa meel kasta nafaqa taala oo wadankeena taala. inkastoo waxa xoolaheena iyo wadankeena laga helo ay ka sii fiican yihiin. haddana waxaan ku daray 2 qaado oo saliidda qumbaha ah oo organic ah sideeda lagu soo maxaan ku radaa shiiday mid warshad soo martay ma ahan. waa waxyaab la timuhu waxay la mid yihiin jirka. 2 qaado malab aan ku darsanayaa. malabku waa wax aad iyo aad nolosha bini'aadamka ugu fiican maskaxda iyo maqaarka iyo tinta salkeeda ugu fiican. timuhu waa beerta hadaa hagaajisidna oo si fiican bay kugu baxaysaa. haddana waxaan ku darayaa 2 qaado oo ah dacartii aan soo shiiday oo aan soo miiray qolofteedan ku soo shiiday because of qolofta laftarkeeda iyada faa'iidooyin fara badan leh. marka waa kaasa timuhu waa beerta hadaad qashinka hoose ka jartid oo geed gaabka ka jartid oo geedka gubiga ka jartid oo aad waraabisid way baxaysaa beertu. tintina waa la mid tintaada mar walba adiga labadii maalmoodba maxaa ku raada shan la'aan ama hadaa shanlada marin karto maalin kasta mari. shan la'aantu dhib u leedahay, dufan la'aantuna dhib u leedahay way jajabaysaa. tinta waxaa fiican wiigi mar in la dhaqo iyadoo qoyan ha shanlayn iyadoo aad qallalan ha shanlayn. tinta nafaqada iyo waxaas hadaa tintaada aad u badisid waxa dhici karta tintaada in strong noqoto oo shanlada iska xajiso. asxaabta ugbaad health cooking maanta waa fiideo aad iyo aad u yar oo maxaan ku radaa soo koobay. like iyo share iyo subscribe aan naga qadinina. talaagada gashan kartaa ilaa week bi talaagada kugu jiri kartaa. week kala isticmaalaysaa markaa. assalaamu calaykum.